وهاج هذا waxaa si toos ah khadka telefoonka ugu jira Nagiib Aadan oo aad arki kartaan inuu taagan yahay goob dadku ay ka xoqanayaan kaarka ATM-ka loo yaqaano mashiinka lacagaha oo waxa uu doonayaa inuu ka baxo wadanka gobolkiisa uu ku sugan yahay Dlibro oo xuduud la gobolada la weeraray isla markaasina dagaaladu ay mataqaana soo gaadhayaan iyo weerarada iyo madaafiica ay sameynayaan ciidamada Ruushku hadda si toos ah khadka telefoonka ayuu ugu jiraa telefishinka cable ayuu waramaya Nagiib soo dhawow bal waxaad nooga warbixisaa xaaladii ugu dambeysay gobolka aad ku sugan tahay Dlibro iyo Soomaalida halkaas ku nool dalool lagu dhaweeyay aad baad salaamaya maanta aan hurdnay waqtiga wanaagsan ma iska jirnay oo iska hurdnay maanta waxaan ugu soo qaadan qaraxyo saaka afti meelaha aad todobadii meelaha ay afartii iyo shantii ayaa qaraxyo ugu soo qaanay dhulkan la geliyay waaye marka qaraxii baan wallahi inaan naxti geliyay marka deetana waxaan aragnay inaan kale oo jaamacad kale halka ka dhigta ayaa markii dambe noo soo sheegay oo halka inta duqeyntu ka dhacday oo Soomaaliya يا رب ندقي مدارك ولا قرحية إسكاك سو عرّة إما كمان تيمان تاجنا هي كيوبا نقولنا تيمادي نوم بحيان والله ده إما كوا كي شرادة متقنا إمك واي حلقة كجاب كرتان ماشان ونوع ما ديار بس كجاب حيسان هذا يريد عجنا مدحويني يكرين بحالي عجنا إمك مدحويني يكرين بحالي dadkiibu wixii shacib oo qoriyaal haysto soo baxa buuri intaan dhiligu iman meesha oo nidi kan la duqeyn marka anigu iska cararna wallahi halka xuduud iska tegnaa gobolka intii ay idii jiraan Nagiib gobolada weeraradu ka socdaan ee ciidamada Ruushku ay weerarada ku ekeeyeen waxay noo jiraan ilaa meelaha aad u 6 saacadood baa loo socdaa haddana maanta madfiicuu la soo gaaray waayo baashi waxa la shiday qeylinisay dadka soo baxay la isku lahaa dad iska fiijignaada ayaana loo shiday saaka wallahi de xalkay uu iska adigay walaal halkii ayaa doonaysaan adiga ay dadka reer Ukraine halkaas ka qaxaya in aad tagtaan diyaarado wal ma jiraan tareenadina ma jiraan marka tagaasi baa baxaysa $500 qofkiiba waxa laga qaadaya $100 shan qof oo tagaasi kuwaas geenaya marka gobol waxaan tagnaa la fiif leeyahay gobolka laftigiisa wala duqeey xeradii militariga laga duqeeyay ee diyaaradu soo fariisanayeen xagaasan ku tagnaa insha Allah iyagu ku soconaa marka lacagaga soo saaran xaafadayga wallahi hadalnay meel lacag lagu soo diran garan laanahay ee teemyada wallahi waa lacag kula hore nagu sii jiray oo saaran karan laanahay lacagina waa dhamaanay anagu ku jirnaa oo waxa leeyahay iska taga lacagii baa dhamaaday marna waxay nagu leeyihiin safka soo gala marka wallahi xalkay baad walaal iska gaxun yahay marka ilaahay uu banu bari doonaa oo anaguna wahag adiga iyo tiro kale oo Soomaaliya intee ayay leeyihiin dadka kale ee Soomaaliyeed ee halkaasi kugula sugan ee baxaya wallahi way aad u badan yihiin Soomaalidu laakiin waa Soomaali anu ilaa meelaha waxaan joogaa imka bilbay bisameysa ayaan joogaa jaamacad baan u yimid deetana markaa Soomaalida kale wallahi imka qaar basafkii la taagan iyaguna kaararkii haysta ATM-ka waxoogaa iyaguna wallahi Soomaalida iyaguna yaabayeen imka inama koro ila helay oo kala jaamacad ahayna isku maraan wada tagnay la fiif bitigeenba ay joogan gobolka Boland u dhow ay tagin xuduuda halkaas ay joogan dadkii imka anaguna ka daba baxnaa walaal wahagaag aad ayadu mahadsan tahay Nagiib oo si toos ah ugu waramay telefishinka Home Cable oo kamid ah Soomaalida ku sugan wadanka Ukraine gaar ahaan gobolka Dlibro oo ay Soomaali badan ku sugan tahay kuwaasi oo maanta naftooda la cararaya isla kadib markii weeraro ciidamada Ruushku ay ku ekeeyeen wadankaasi Ukraine waxa jira tiro kale oo Soomaaliya oo ku sugan wadankaasi oo iyaguna kamid ah dadka firxanaya maanta kala cararaya